Hallow, waad salaamantiin asxaabta ku xiran janaalka Sahanwade kaasoo soo gudbiya barnaamijyo aad u xiiso badan sida taariikhyada, dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinno, arrimaha noocaas oo kale ah. Maanta waxaan la hadlayaa qof walba oo dhalinyaro ah oo ku xiran janaalkan kaasoo maqlaaya codkayga, fahmayana waxa aan ka hadlayo. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa 4 caado oo dhalinyarada sanadkan faraba'an ku hayso. Caadooyinkaas oo haddaadan iska daynin ku ridaya noloshaada mugdiya. Anigaan hadda kula hadlayo ayaa soo maray caadooyinkan, waxaana ahay nin dhalinyaro ah, balse markaan arkay waxaan ku socday inaysan marna noloshayda hagaajinayn, ayaan hal mar waxaan ka qaatay go'aan dhaxalgal ah. Kaasoo aan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay sidaan u bedelay noloshayda. Waxaana jeclaystay inaan la wadaago dhalinyarada dhibaatooyinka ay leeyihiin caadooyinkan si ay iyaguna iskaga daayaan ugana qaataan go'aan sax ah. Haddaba, maxay yihiin 4tan caado oo aan kuu sheegayo inaad iska dhaafto? Qodobka koowaad, daawashada muuqaalada xunxun. Maxaa ka dhalan kara daawashada muuqaalada lagu soo bandhigo anshaxumada? Daawashada aflaantan maxay ka bedelaan maskaxda? Waxaa waayahan dambe soo badanaya saameynta xun ay leeyihiin daawashada muuqaalada lagu soo bandhigo anshaxumada. Daawashada filmadan ayaa sababa in maskaxda laga soo daayo hormoono kiciya shucuurta qofka, taas oo sahlaysa in dadka daawada anshaxumada ay qabatimaan. Daawashada aflaanta noocan ah filmadan ayaa ku yeesha maskaxda saameyn waqti dheer qaadata. Daawashada aflaantan maxay ka bedelaan maskaxda? Daraasado badan ayaa tilmaamaya inay arrintan dhaliso dib u habeyn ka dhacda maskaxda, taas oo bedel ku keenta qaab dhismeedka maskaxda iyo shaqada. Haddii aad u daawan jirtay muuqaaladan, waxaa kula soo darsaya arrimo aad inta noloshaada ka dhiman aad ku noolaanayso qoomamayn iyo halaag ku dhaca naftaada, sida fahan la'aanta casharada, murugada iyo walwalka joogtada ah iyo xanuuno aad u fara badan. Sidoo kale kalsoonida naftaadu way burburaysaa. Haddaba walaal, haddii aad ku howlaneed arrintan noocaana, maantaba iska soo laab buuggaas oo u carar dhanka Allihii ku abuurtay adigoo u toobad keenaya. Haddaba waxaa la sheegaa dadka la qabatimay daroogada iyo dadka la qabatimay muuqaalada baahiye galmada inay isku mid ka yihiin dhanka maskaxda marka la saaro kombiyuutar. Dadka la qabatimay daawashada muuqaaladaas iyo dadka la qabatimay daroogada waxaa la arkaa in hal aag oo ka mid ah maskaxdooda ay kor u kacdo fariimaha laga soo gudbiyo. Aagaas ayaa ah mid shaqo ku leh dhiiranaanta qofka iyo dareenka. Waad aragteen qofka caba daraagiska waa qof iska maqan had iyo jeer. Waxay dhahaan aljismu xaadir qalbu qaa'ib. Waxaad noqonaysaa qof nolosha ka dhacsan oo aan lahayn wax hadaf ah. Qof un iska nool, cuno caba laakiin aan aqoon meeshay noloshiisu u socoto. Si aad iskaga dhaaftid, dhammaan waa inaad xirtaa agabkii aad ka daawan jirtay muuqaaladaas. Sidoo kale naftaada waa inaad u sheegtaa waxaas inay ahayd waddo halaaga oo aad ku socotay, haddana aad u laabanayso waddadii Ilaahay raallida ka ahaa. Si ay maskaxdaada u qabowdo, badso salaadaha sunnada ah iyo kuwa waajibka ahba. Sidoo kale akhri kitaabka Alle. Haddii aad farxad dareemi weydo, walaal, anigaan kula hadlaya ayaa beenlow ah. Qodobka labaad, soo jeedka habeenkii, saamaleylka. Hurdadu ma ahan shay sahlan oo la dhayalsado. Waa wax laga maarmaan u ah nolosha qofka. Hurdadu waxay aas-aas u tahay caafimaadka jirka iyo maskaxda. Haddii uu dhafarkaagu daba dheeraado, waxaa imaan kara inaad halis u gasho, inaad waalato, waayo maskaxda waxaa loogu talagalay waqti ay ku nasato kuna seexato. Hurdadu waxay saxdaa kiimikooyinka uu jirku isticmaalo maalin kasta. Haddii uusan qofku hurdin hurdo ku filan, waxay kiimikooyinkan halis gelin karaan habsami socodka shaqada jirka iyo maskaxda. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala quraankiisa uu noogu sheegay ahmiyadda ay leedahay hurdadu, isagoo dhahaya wajacalna layla libaasa wajacalna nahaara macaasha. Miyaanan maalinkii inkaga dhigin waqti shaqo, habeenkiina waqti hurdo? Sidaa darteed, jooji walaal dhafarka habeenkii, xilli fiican seexo si aad subaxii waqti fiican u soo kacdo, adigoo dhulkaas Ilaahay ka raadsanaya irsaaqadii Ilaahay kuu qoray maalintaas. Seexo habeenkii ugu yaraan 6 saacadood, way kugu filan tahay intaas. Qodobka saddexaad, isticmaalka baraha bulshada ee xad-dhaafka ah. Qarnigan 21aad waxaa si xad-dhaaf u qabsaday caalamkii isticmaalka baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, YouTube, kuwaas oo ah dhammaan burburiyaasha nolosha qofka aadanaha ah hadduusan iska xakamayn una maarayn waqtigiisa. Balwadda internetka waa xaalad maskixiyan ah oo sababta in dadka ay ku lumiyaan waqti badan isticmaalka kombiyuutar ama aaladaha ku xiran internetka. Waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadka, dakhliga qofka iyo xiriirka uu la leeyahay dadka. Warbixin daraasad oo ay samaysay jaamacadda Copenhagen ayaa sheegaysa in isticmaalka baraha bulshada ay keento xaalad masayr ah sida Facebook iyo Instagram. Waxaa jira dad badan oo halkaas ku lumiya waqtigooda, iyagoo dad inta sawir la soo filtareeyay soo galay, ka bacdina soo dhigaya meeshaas, ka bacdi aad adigu moodaysid qofkan inuu ku nool yahay nolol aad u sarreyso. Laakiin xaqiiqda jirta ayaa waxay tahay inuu qofkaas ku nool yahay nolol khayaali ah, taasoo ku dhisan qancinta dadka kale,
qof u nool sawirka halkaas uu soo dhigaya inuu qanciyo dad kale kabacdina ay faala ka bixiyaan nolol kale iyo ayo kalena aan lahayn. Isticmaalka baraha bulshada waxay sababaan kalsooni la'aan, waqti lumis, nolol aan farxad lahayn, nolol ku dhisan sidee u arkaan dadka kale maxay ka aaminsan yihiin. balse isweydiyaadi su'aashan hadiiba uu isticmaalay ninkii sameeyay Facebook oo uu leeyahay wuxuu dilayaa waqtigeyga adiga maxaa kugu jira bay walaal. xitaa hadii ay laga maarmaan tahay inaad isticmaasho baraha bulshada si waqti aad soo dhameysatay arrimahaagii kale waliba waqtigaas oo kooban. baraha bulshada waxay leeyihiin dhan fiican iyo dhan wanaagsan. ka isticmaal dhanka wanaagsan sida inaad wax ka barato. dunidii hadda way hormartay, adigoo gurigaaga jooga ayaad wax ka baran kartaa. ka baro YouTube, wax walba isagaad ka helaysaa. haddii aad rabto sida muuqaalka hadda aad daawanayso ama loo edit gareeyo, haddii aad rabto inaad luqad ka barato waad ka baran kartaa. wax walba halkaasaad ka helaysaa. dhanka wanaagsan ka isticmaal walaal. qodobka afaraad, iska yeelyeelid inaad samayso qof kale wuxuu sameeyey. sida hadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay sameeyaan, waxaan la dhahayo reaction ayaan waxaan ka bixinaynaa fiideo dad kale ay leeyihiin. taasi waxay dilaysaa walaal hal abuurnimadaada. adigu noloshaada u tasho, ha ku mashquulin qof kale wuxuu sameeyey. mararka qaar waxaad arkaysaa in dhalinyaradii Soomaaliyeed ay waqtigooda ku lumiyaan daawashada ciyaaraha iyagoo dantoodii macnawiga ahayd ka hormarinayaan waxyaalo aan faa'iido u lahayn. sidoo kale inaad iska yeeyeshid socod aadan lahayn adigoo sameynaya socod qof kale. haddii aad mooday inay waajib tahay inaad xirato dharka uu xirto Cristiano Ronaldo ama qaabka uu jarto inaad u jaratid, taasi wax macno oo ay leedahay ma jirto. ogow qofkaasi waa shakhsi ku dhashay 9 bilood sida adiga oo kale. waxba kuma dheero, heerkuu gaaray heer ka wanaagsan ayaad gaari kartaa. maalintaad qof adig kula mid ah aad noloshaada ku dabaqdo ayay noloshaadu burburaysaa. adigu samayso qorshe kuu gaara, qoro hadafyada noloshaada. maanta kadib u istaag walaal noloshaada sidaad horumar uga gaari lahayd, sidaad uga bixi lahayd xayndaabka aragtiyarida, hami la'aanta, hiigsi la'aanta. ugu dambeyntii waxaan ku oran lahaa waari maysida waraa kaa haro. mahmaadan waxay xambaarsan tahay micno weyn. adduunku waa maalmo qura, uga tag wax lagugu soo xasuusto. intaas ayaan idin soo gudbiyay maanta. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan la wadaag asxaabtaada, like iyo subscribe. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin oo idin dhahaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.